iyadoo laga duulayo baahida ay dadweynaha reer Puntland u qabaan shirweyne ay kaga wada tashadaan aayahooda isla markaana dib ugu milicsadaan ujeedooyinkii iyo himiladii ay u dhisteen dawladda Puntland 17 sano ka hor waxaa magaalada Gaalkacyo ku qabsoomay 25 ilaa 29 bisha Agoosto 2015 wajigii koowaad ee shirweynaha wada tashiga ee Puntland shirweynaha waxaa ka soo qayb galay 230 qof oo 202 ergay ahayd 28 ay ahayd marti sharaf kuwaasoo metelaya guud ahaan bulshada Puntland waxaana looga wada hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin xoojinta midnimada iyo jiritaanka Puntland adkaynta nabadda iyo xasiloonida iyo taabagelinta nidaamka xisbiyada badan haddaba shirweynaha wada tashiga Puntland waxaa laga lahaa 3 ujeedo oo kala ah in la adkeeyo midnimada bulshada Puntland iyo isku xirka ummadda oo ay ka mid yihiin qurba joogta iyada oo laga duulayo rabitaankii iyo mabaadi'dii lagu aasaasay Puntland 1998 lana tixgelinayo duruufaha jira 2 in laga tashado maareynta khilaafaadka ku salaysan khayraadka dabiiciga siyaasadda iyo aanada 3 iyada oo laga ambaqaadayo rabitaanka bulshada Puntland iyo hoggaankeeda in si dhab ah didibada loogu taago nidaamka xisbiyada badan dib la noo bilaabo shirweynaha wada tashiga Puntland waxa uu ka kooban yahay 4 waji oo looga arrinsanayo arrimaha kor ku xusan ee aan soo sheegay waxayna kala yihiin shirarkaasi wajiga koowaad oo ay isugu yimaadeen dawladda iyo xubno wakiil ka ah ururada bulshada rayidka ee Puntland oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo wajiga labaad oo ay isugu iman doonaan hoggaanka dhaqanka ismada Puntland oo ka dhacay doona magaalada Qardho wajiga saddexaad oo ay isugu iman doonaan wakiil metelaya qurba joogta reer Puntland kana dhici doona magaalada Garowe iyo shirka ansixinta oo ay ka qayb gali doonaan xubno laga soo xulay ka qaybgalayaashii 3 waji ee hore kana dhici doona magaalada Garowe kaasi oo noqon doona gunaanadka shirweynaha wada tashiga Puntland 2 go'aanada shirweynaha wada tashiga Puntland wajiga koowaad 2.1 himilada Puntland shirweynuhu isagoo garoosan himilada Puntland lagu aasaasay ay ahayd in shacabku helo haykal dawladeed oo dhammaystiran daboolana baahida bulshada Puntland baadi goobana qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam federaali ah shirweynaha wada tashiga Puntland wuxuu garowsaday in lagu guuleystay dhammaystirka haykalkii dawladnimo ee Puntland inkastoo ay tabashooyin jiraan in lagu guuleystay baadi goobkii qaranka Soomaaliyeed iyadoo la dhisay dawladdii ugu horeysay ee federaali ah 2004 waxaana xigtay tii la dhisay 2012 shirweynuhu waxa uu garowsaday in Puntland xoog xoolo iyo maskaxba ay gelisay helitaankii dawlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaaliga ah lana gaaray hase ahaatee aysan ka helinin xuquuqdii iyo mudnaantii ay ku lahayd shirweynuhu waxa uu go'aamiyay in Puntland iyo dawladda federaaliga ahi ay soo afjaraan khilaafaadkooda siyaasadeed si loogu gudbo dhisme qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan sinaan cadaalad iyo horumar 2.2 midnimada iyo wadajirka Puntland shirweynuhu waxa uu go'aansaday in dawlad iyo shacabba loo hawlgalo soo celinta deegaanada maqan kuwaasi oo maqnaanshahoodu dhaawac weyn ku yahay midnimada iyo dastuurka Puntland sidaas darteed waxa shirweynuhu go'aansaday in la magacaabo guddi dawlad iyo shacab loo dhan yahay oo u hawlgala ama ka hawlgala soo celinta deegaanada maqan ee Puntland 2.3 hoggaanka dhaqan ee Puntland shirweynuhu waxa uu qirayaa in hoggaanka dhaqanka bulshada
puntland uu dhexdeeda uu ku dhex leeyahay xurmo iyo qadarin soo jireena isla markaana dastuuri ah sidaas darteedna shirweynuhu waxa uu ku talinayaa in ismadu ay ka dhowrsoonaadaan ku milanka arrimaha siyaasadda oo sharaftooda iyo haybadooda wuxuu dhimi karaa kuna ekaadaan doorkooda dhaqan ee shariifka ah. 2.4 qurba joogta puntland shirweynuhu waxa uu garowsaday in maalqabeenka aqoon-yahanada iyo guud ahaanba qurba joogta puntland ay wax badan qabteen guud ahaan iyo gaar ahaanba haddaba shirweynuhu waxa uu uga mahad celinayaa waxqabadkooda wuxuuna shirweynuhu isla markaasi ugu baaqayaa in maalqabeenada iyo aqoon-yahanada qurba joogta reer puntland ay maalgashadaan dhulkooda dowladuna ay u sahasho shuruucdii iyo tahsiilaadkii dhiirigelin lahaa. 2.5 khilaafaadka siyaasadeed khilaafaadka siyaasiga ah waxaa looga hortegi karaa dowladda oo shuruucda dalka hirgelisa lagana gudbo hab siyaasadeedka ku dhisan qabiilka loona gudbo nidaamka xisbiyada badan si dhaqso badanna ama sida ugu dhaqsaha badanna loo hirgeliyo. 2.6 dilalka aarsiga ah faldambiyeedyada keena dil ama dhaawac shirweynuhu waxa uu go'aamiyey in lagu xalliyo shareecada islaamka sida dilka magta dhaawaca. 2.7 khilaafaadka khayraadka dabiiciga ah shirweynuhu waxa uu garowsaday in dhulka lahaanshihiisa ay dadweynuhu leeyihiin dowladuna wakiil uga tahay ku dhaqankiisa iyo maamulkiisaba ha ahaado dhul daaqsimeed cilbiyood dhul beereed iyo dhulka magaalooyinka sidoo kalena ay dowladdu fuliso siyaasado ama siyaasadda iyo xeerarka ilaalinta deegaanka. shirweynuhu waxa kaleeto uu garowsaday in la sameeyo guddi la yiraahdo guddiga ka hortagga colaadaha iyo xallinta khilaafaadka oo heer puntland ah. 2.8 dhibaha ciidanka shirweynuhu waxa uu aqoonsaday baahida loo qabo in dowladdu fuliso shuruudaha ama shuruucda aan iraahdee ciidamada u yaala ciidankuna ay noqdaan ciidan qaran oo dowladdu damaanad qaado xuquuqdooda iyo agabkooda. dhibaha ciidanka gudihiisa ama dibadiisa ka dhaca waa inayan beelaha dib ugu soo noqon ee dowladdu hab sharciga dalka ku waafaqsan ay ku xalliso waana in dowladdu ay la timaado siyaasad cad oo ay ciidanka ku qoranayso kuna howlgelinayso. 2.9 geedi socodka dimuqraadiyadda puntland shirweynuhu isagoo garowsan in dimuqraadiyaddu ay tahay nidaam lagu gaaro in lagu fuliyo adeega bulshada oo ku dhisan sinaan cadaalad hufnaan iyo isla xisaabtan kuna yimaada rabitaanka shacbiga iyagoo dooranaya cidda hogaaminaysa si waafaqsan diinteenna dastuurkeenna iyo dhaqankeenna suuban. haddaba shirweynuhu wuxuu go'aamiyey in si degdega loo magacaabo guddiga doorashooyinka si uu u guto waajibaadkiisa hoos ku qoran aan soo sheegayo. dhammaystirka shuruucda doorashooyinka wacyigelinta bulshada ee arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. 2 in la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd. 3 in la magacaabo guddi daraasaad iyo qiimayn ku sameeya kororka iyo xadayn la'aanta ama xuduud xadayn la'aanta degmooyinka iyo gobollada puntland. 2.10 arrimaha dhaqaalaha iyo garsoorka si loo gaaro ama loo fuliyo dhammaan go'aanada kor ku xusan shirweynuhu wuxuu go'aamiyey in si cilmiyeysan loo horumariyo dhaqaalaha iyo garsoorka dalka isla markaana la madax baneeyo xisaabiyaha idman la
la tayeeyo xafiiska hanti dhowrka guud, la tayeeyo maamulka maaliyadda guud, la tayeeyo garsoorka. shirweynuhu waxa uu walaac xoog leh ka muujiyay xaaladaha badaha Soomaaliya gaar ahaan Puntland oo ay xaalufin xad dhaaf ku hayaan kalluumaysato sharci darro ah loona baahan yahay in dawladdu ay wax ka qabato kalluumaysiga sharci darrada ah iyo arrimaha tahriibta labadaba. 3 damaanadda fulinta go'aanada shirweynaha. go'aanada shirweynaha ka soo baxa waxa damaanad buuxda u ah ku dhaqanka dastuurka, shuruucda kale ee dalka u yaala iyo dhamaystirka hay'adaha dastuuriga ah ee Puntland. intaas waa intii hore. waxaynu gelaynaa baaq nabadeed. kadib wadatashi, falaqayn iyo dib u eegis lagu sameeyay himiladii midnimadii iyo wadajirkii Puntland lagu dhisay lana garowsaday saamaynta colaadda beeleedyada iyo khilaafaadka bulsho ee ay keeneen siyaasadda khayraadka dabiiciga ah iyo aanadu. shirweynaha wadatashiga Puntland ee wajiga koowaad ee ku soo gabagaboobay magaalada Gaalkacyo maanta oo Sabtida 29 bisha Agoosto 2015 wuxuu baaq u soo jeedinayaa bulshada Puntland. shirweynuhu waxa uu guud ahaan ugu baaqayaa bulshada Puntland in ay ku wada noolaadaan nabad, midnimo iyo iskaashi, una hoggaansamaan dastuurka iyo dawladnimada Puntland, gacanna siiyaan hay'adaha amniga iyo garsoorka si loo xoojiyo nabadda, wadajirka ummadda iyo hirgelinta sharciga. wuxuu kaloo shirweynuhu ugu baaqayaa bulshada Puntland oo ay hormuud u yihiin hoggaanka dhaqanka iyo siyaasaddu inay u guntadaan xalinta colaad beeleedyada iyo khilaafaadka siyaasadeed ama dhaqan ee aloosan si loo helo midnimo, nabad waarta iyo horumar. wuxuu kaloo shirweynuhu bulshada Puntland ugu baaqayaa in ay u midoobaan ka hortagga wax walba oo khalkhal gelinaya nabadda, midnimada iyo jiritaanka Puntland, gacanna ku siiyaan dawladda gudashada waajibaadkeeda dastuuriga ah. 2 bulshada Soomaaliyeed baaqa loo jeedinayo. shirweynaha wadatashiga Puntland waxa uu ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah ugu baaqayaa inay ka waantoobaan colaadaha iyo khilaafaadka siyaasadeed ee ragaadiyay dawladnimadii, wadajirkii iyo horumarkii ummadeed, kana dheeraadaan wax kasta oo ummadda kala geynaya ama kala geyn kara oo ay ka mid tahay hadallada xanafta leh ee warbaahinta la isu marinayo. wuxuu kaloo shirweynuhu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay dhammaan khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee jira ama iman kara oo ay ku xalliyaan wada hadal, tanaasul iyo isfaham si loo ilaaliyo danta guud, loogana baaqsado colaad sokeeye iyo dhiig Soomaaliyeed oo ku daata. shirweynuhu waxa kaloo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay nabad iyo deris wanaag kula noolaadaan ummadaha la deriska ah, hormuudna u noqdaan iskaashi nabadeed iyo mid horumarineed oo dhex mara ummadaha walaalaha ah ee geeska Afrika wada degan. 3 baaqa beesha caalamka loo jeedinayo. shirweynaha wadatashiga Puntland isaga oo garowsan kana mahad celinaya taageerada beesha caalamku ay mar walba la garab taagan tahay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Puntland. wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa in aanay ka daalin gargaarka iyo taageerada ay siiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhismaha nabadda iyo hay'adaha dawladeed ee heer federaal, dawladaha xubnaha ka ah iyo maamulada ku meel gaarka intaba. shirweynuhu waxa kaloo beesha caalamka ugu baaqayaa in deeqaha iyo kaalmada bini'aadanimo iyo horumarineed ay ugu deeqaan ummadda Soomaaliyeed ay u qaybiyaan si siman
وأن هرسيدين كلا تبشو يعرض شروينه وحبيش عالم كأوبا غيا إن حيرات جرجارك هرو مرينات إسارن قبل الدسول سنة عين أي كقادان شبل سيدا قبل داسي أي سامي جودا وجهلان مشاريع ده هرو مرينات إبيش عالمك جبدي شروينه وجمهد علينا يا دولة بونتلان وهرمودي يا مدحويني عبد الولي محمد علي قاس سورة جرين تشروينها لبعض وضتش بونتلان وعكرته محد بلارن وجدين يا ماملك يا شعب كقال كعيوه سودوينتي يا مرتجلينتي مدة شروينه الصعيد وحكلوا شروينه بقادين يا دلالة اللجوس علينا يوه hantidii dawladda iyo banaynta wadooyinka ee ka socda degmada Gaalkacyo taasoo astaan u ah bisaylka shacabka iyo u hogaansanaanta sharciga ugu dambeyn shirweynuhu waxa uu mahad celinayaa qabanqaabayaasha shirweynaha deeq-bixiyeyaasha guddigii qabanqaabada iyo guddiga hagidda shirgudoonka iyo cid kasta oo gacan ka geysatay qabsoomida iyo habsami u socodka shirweynaha wadatashiga Puntland waxa go'aanada shirweynaha si wadajira u saxiixaya iyaga oo ka wakiila guud ahaan bulshada Puntland gaar ahaan ka qaybgalayaasha shirgudoonka ayaa saxiixaya shirweynaha iyo madaxweynaha dawladda Puntland shirgudoonka shirweynaha haddii aan taxo magacyadooda waxa weeye Cabdiraxmaan Diiriye Qoorad oo ah gudoomiye Caasha Ismaan Ismaaciil gudoomiye ku xigeen Yaasiin Cabdi Saamad Umar xoghayn Axmed Maxamed Jibriil xubin Ali Daahir Cilmi xubin Yaasiin Artan Maxamed xubin iyo madaxweyne Cabdi Weli Maxamed Ali Gaas.